بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتنا كحرا كنالك إنها الشعب كآد بعد يوم سلام الدمانتين إن دويد وأخوكنا مرلين هكذا runtii mashquul aada u fara badan oo iyo howlo fara badan waqtigu aada igu yaraaday daraaddeed waxaan jeclaa mar walba waxyaabaha igu cusub ama waxyaabaha isdhahayo waxbay u tarayaan bulshada Soomaaliyeed inaan halkan idinkaga soo jeediyo buu ahaa sababta aan markii hore kanaalkan indhaha shacabka aan u furay waxyaabaha dadka indhahooda ay arkaan oo ay jecel yihiin in la soo tabiyo ama in laga hadlo cidii xoogaa leh iyo haddii la heli karo cid xoogaa loo markaa la waraysto intaba waxaan rabaa waxay inaan ka taataabto dhibaatooyinka qurbaha baan rabaa inaan in yar dadku hadda waa ka wada dheragsan yihiin in maqan oo ka maqan qurbaha iyo inta joogtaba siiba wadamada qurbuhu waa kala duwan yahay mar walba wadan aan wadankaaga ahayn adigoo aadan ku haysanaynin raaxo fara badan nolol fara badan qurux fara badan deganaansho fara badan waxyaabaha aad wadankaada aad ka heli kartid mar walba wadanku haddii uu mid muslim yahay iyo mid gaalad haddii uu yahay mar raba wadankaada wax aad ka helayso kama heli kartid wadan kale iyadoo haddana ay jirto abuurka ilaahay subxaana wa tacaala uu dadka u abuuray inay qaarkood iska jecel yihiin guryaha dhaadheer dhulka cagaaran ee dadka shisheeya ama gaaladu ay samaysteen inay iska dhex joogaan barnaamijkaygan saan hore idinkugu sheegayba waxaan rabaa inaan marba saan jaaniska u helo marba qayb yar inaan ka taataabto dhibaatooyinka qurbaha yaalla iyadoo dad fara badan ay horey uga wada hadleen runtii ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa waddankeena inuu nabadgeliyo taam ah inoogu soo dabaalo waxaad markaad aragto waddanka aada la soo hadasho Soomaaliya ama dhalinyaradeeda ama dadka waaweyn cid walboo joogta qof walba wuxuu jecel yahay inuu dhoofo dadkuna waxay ka wada hadlayaan ama ay isweydiinayaan ama ay ku weydiinayaan dhoof meesha ugu sahlan ee la mari karo iyo sidii lagu heli karo marka dadka waxaa waddankooda ka wadayana markii si hoose aad u eegto waa dhibaatada meesha taalla dilalka shaqo la-aanta macnaha waxbarashada caafimaadka dhibaatooyin fara badan baa waddankii yaalla oo aada moodayso dadka mas-uuliyaddooda u qumay ee maamuladooda haya inay kulligood ay ku mashquulsan yihiin danahooda gaarka ah oo aysan arkaynin dhibaatada shacabka Soomaaliyeed ay mas-uuliyaddooda qaateen inay wax ka qabtaan taa marka waxay kaliftay waddankii in ay dadkii ka soo wada yaacaan kii wax heli kara leen gadan kara kii tahriibi kara macnaha kuwa aan intaa awoodina qalbigiibay hiyikacbaa ku jira oo dad xasiloon oo waddankoodii si deganaansho ah kalgacal leh ku jooga ma aha marka walaalayaal anigu ta aan rabo inaan idinla wadaagaa waxay tahay annaga ilaahi subxaana wa tacaala waxaan uga mahad celinaynaa wuxuu naga dhigay ummad muslimiin ah muslimnimaduna waxay u baahan tahay ku dhaqan iyo ku maaragtay inaad ku dhaqanto oo waajibaadka ku saaran aada fuliso qurbaha marka ay dhibaatooyinka yaalla waa ka mid maaragtay xagga cibaada xumada hadday shaqooyinkoodii tahay oo shaqooyinkii badana aadan helaynin in xilliyadii shantii waqti sidii loogu talagalay inaad u tukato
waddankana nimcaan ku haysanaa haddii ay xagga tahay taa ugu horreysa nolosha cibaadada hadday tahay meel walba masaajid baa inooga furan aadaankii masaajidkeenu dhegaysanaynaa dugsiyadii qur-aanka inoogu yaalla ubadkeenna waxay inoogu jiraan kontaroolka gacanteenna iyo ammaanada ilaahay subxaana wa tacaala walwal fara badan iyo cabsi badan kama qabno laakiin qurbaha waxaad ka fikeraysaa cunuga haddii uu soo daaho miyaa lagaa kaxaystay miyaa lagaa dilay maxaa ku dhacay waxaa ka walwalaysaa waxbarashada iskuulka cunuga uu soo baranayo waxyaabaha kale ee diinteenna ka baxsan cunugaada ma aamini doonaa oo ma qaadan doonaa mise ma qaadan doono saaxiibada iskuulka ilmahaagu saaxiibada ay la soo noqonayaan kuwa muslimiin ah miyaa mise waa kuwo kale badanaa waxaa laga yaabaa inaysan kuwa muslimiin aysan ahayn ee dadka ajaanibka ee gaalada ay yihiin isku dhaqan ma nihin isku dabeecad ma nihin isku waxba maahayn marka cunugaada waxaa laga yaabaa waalidiinta qaar ama hooyooyinka qaar subaxii markay shaqo tagaan caruurtoodana ay geeyaan iskuulka ama meelaha caruurta yaryar lagu hayo hooyadii iyo aabihii ilaa 10 saacadood 12 saacadood shaqo kusoo jiraan ciyaalkana markay iskuulka ka soo baxaan haddana dib loo geeyo meelaha caruurta lagu hayo hadhowna gurigaaga ay yimaadaan markay gurigii ay yimaadaanna caruurtii laga yaabo inay tv-ga ama mobilka ay ku mashquulaan adigana waxa jaanisaba idin isu yerin adigana adigoo daalan baa timid howl kale oo caruur iyo tarbiyadood iyo adaabtood iyo dhaqankood qof geli kaleba maahayd qof 12 saacadood soo shaqeeyay baa tahay marka waxaa laga yaabaa caruurtaada qolada gaalada ay u tagtay iyo adiga inay ku badiyaan qolada gaalada ah sababtoo ah 12 saacadood bay ishor fadhiyeen oo ay wada joogeen oo ay waqti wada qaadanayeen lagana yaabee in ay iyagu dadka ay leeyihiin dan gaar ah oo ka baxsan annaga danaheenna islaamnimadeena iyo dhaqankeena ka baxsan oo ay dumayaan ciyaalka sidii ay kaaga soo jiidan lahaayeen marka waqtigii adiga ay kula joogeen iyo waqtigii ayaga la joogeenna waxaa badan waqtigii ayaga ay la joogeen waad garan kartaa marka ilmaha halkan ku dhashay ama isagoo yar la keenay ee taymkiis intii ugu badnayd uu la qaatay dadkaas adigii waalidkiisii dhalayna uu la qaatay waqti yar mustaqbalka iyo rajada laga qabi karo qof ilaahay badbaadiye maahane waan garan karnaa marka waa qayb ka mid ah qaybaha aan rabo inaad ka ogaataan dhibaatada qurbaha dadka raba inay yimaadaan oo nolol ku samaystaan at least inaad wax ku qaybsataan xogta aan idiin sheegayo nolosha adduunyada iyo nolosha aakhiro way kala badan tahay adduunyadu waa waqti kooban aakhirana waa tii dheerayd meel dambe oo laga aadaya aysan jirin marka ma kala bedelan karno oo aakhiradeenna adduunkeenna kuma bedelan karno marka waa inaad xisaabta ku darsataan waxyaabaha dhibaatooyinka qurbaha yaalla ee aan doonayo marba inaan qayb idiin bidhaamiyo tan hadda qaybta caruurta aan ka soo qaaday intaa keliya maaha waa qayb ka mid ah waxaan rabaa waqtiyadayda dambe inaan ayadana qaybo sidaas oo kale ah aan idinla soo wadaago aad baan idiin salaamay dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu